دعوني أناجي نبي محمد عليه الصلاة والسلام قال انت heshiisay waxay tidhi waa dilaynaa go'aana baa la qaatay qabaa'ilka aanu qaybino 10 inaan hala soo saaro waa kaasi dabatana seeftaha lagu wada kulmiyo reer bani haashim dhiiga cid ay u raacaan markay garan waayaan carab oo dhan lama dagaalami karaan waxa magtooda ay aqbali doonaan reesna hayna dhaafo magtana hala qaato ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu faray inuu hijroodo nabi maxamed wixii awoodiisa ama awood bani aadam wixii ahaayoo dhan buu sugay isagii abubakar laba neef oo la fuulabay meel sii daajisteen oo dhigteen nin gaala ayay kiraysteen oo dhulmareena oo wadooyinka kala yaqaana cunay xidhxidheen safarkaasi ay ku sii geli karaan goor aan dadku soconin si aan loo arag buu ka baxeen guryihii si ay u raadgataan buur bay fuuleen oo haddaad saxaaraa lugayso dee raadkaaga markiiba waa la helayaa meeshaad ka baxday may u bixinba xaggii saxaaree buuraleyda ay u baxeen koonfura iyadoo madiine ay waqooyi xigtay xaggii waqooyi may qabane koonfur bay qabteen si raadraaco xaggaa markuu ka doono aan hore loogu helinay iyana xaggan u socdaan si aan loo raadin karin calaykum asalaam waraxma ayay buuraley galeen si ay u dhuuman karaan buu 3 habeen oo isku xiga god ku jireen godkaasay gaaladu intaysa soo dul taagtay ayaa abubakar wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisii wana arkay ma danuka bitnayni allahu thaalithahuma abu nabigu oo maxaad u malaynaysaa laba alla ku sadexiyey laa taxzan ha murugoon ilaahay baa inala jireen laba alla uu ma coodayay ma guuldarraystaane ha murugoonin godkii bay ka baxeen dhexda markay marayeen ayaa warka carabi markii ay weyday ayay waxay ballan qaaday ninkii xayan aw mayita madaxa nabi maxamed iyo abubakar ciddii keenta 100 halaado geel cascasa in madax kasta laga siinayo carabtii dagaalyahanada ahayd ee kaymahoodii aymahooda iska joogtaa warkii soo gaadhay waa ka tilmaamaya saxaabigii la odhan jiray أحد الصحابة كمدا الأشجعي نكي أها سراقة بن مالك الأشجعي وحنا يعني قلنا نادي غير كي هل كي لو شري شريان قف فردية أيام دي سوق قال يقولون كسوح هذا هل كان لبن باسي سعودي وأنا مالين أيوه ما أراه إلا محمد يو صاحب كينيين لو ينعت كلام مالين ما يو مركز ثاني يقولوا وأروح ما درجة وأروح هبل وحب ما درجة سكفرشون وحنا سلهابو يري dhiigooda yaan cidi kula qaybsanayna labada boqol halaad kaliya heshide dabeetana jaariyad buu hoosta ka diray wuxuu yidhi faraskii iyo warnihii soo qabo faraskii baa loo qabtay warankii wuxuu yidhi markaan iyaga ka baxay gurigii tegey waxaan siri buu yidhi waranka haddaad qaadato cadceeddu markay ku dhacdo walacwalaacdiisa meelaha laga arkaya ciidda inta nafka u geliya jiiday buu leeyahay waxaasoo dhan wuxuu samaynayaa dhiigooda yaan cidi kula qaybsanin aad adigu qaadatid xoolaaye markii ilaahay dhulka la gooyay faraskiisii ee suurtoobi weyday nabi maxamed siiba ku nabadgal mas'ala waaxida baan markaa rabaa inaan tusiyo nabi maxamed wax 500 kiiloomitir ka yar dhowr iyo 10 maalmood buu socday markii madiina inta u dhaxaysa dhowr iyo 10 maalmood buu lugeynayay oo godgalayay oo harraadayay oo lugeynayay oo soconayay oo la eriyanayay oo u baqayay mar kalena habeen qura ilaahay intuu dhoofiyay maka inta laga dhoofiyay la geeyay maxay bayt al-maqdis laga dhoofiyo xagee la qabatiyay samada la qabatiyay maxaa ku jira marka ilaahay meena awoodi kale markaan gaaladuba ay rabshada waday inta maka lagala boodo in la yidhaahdo madiina fadhiiso maxaa bay ku daba socon waxay yidhahdaan tahore waa maxallu tashriif linuriyahu min aayatina al-kubra ولا شرف النبي محمد انه ايات قال له سو اركو الهي بحوغيسا wax ka tusay tanina waa tashriic baa la leeyahay waa waxa la rabo inaynu ku dayano inaga la inay taxabay ilaahay awoodu ma waayin ilaahay dadkan kan wuxuu oran lahaa gaalo dhamay dhimo oo dhimo lahaay ama qasab ku islaam oo islaam lahaay وهو على كل شيء قدير بيده الملك أليس الله بعزيز ذي انتقام أليس الله بكاف عبده
ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya war ilaahay miyaanu wax walba awoodin, miyaan gacantiisa wax waliba ku jirin, miyaanu wax walba samayn karin? dabcan wax walbuu samayn karaa. imise qoon baa ilaahay dhulka la gooyey. ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamaya qaar uu kor u qaado dhulka inta lala gooyey, haddana intay soo socdeen warmo dhagxan lagu garaacay naarta laga keenay, dabeetana dhulka lagu abuuray. qowmu luud qaar baa alla tilmaamayey sheeganaya ana rabbukum ulaclaa ya maa calimtu lakum min ilaahin hayri, oo badda inta ilaahay kala jeexay markuu soo galay la isugu dhirbaxay oo ilaa hadda maydkiisa yaallo, oo ilaahay yidhi baktigaagaa reebaya si aad dadka dambe waana ugu noqoto. qaar baa ilaahay inoo tilmaamay lagu qayliyey oo qaylo ku dhintay, kaanama acjaasu nakhlin khaawiya. qaar baa alla tilmaamaya sayxa, qaar baa alla tilmaamaya matar uu lagu qarqiyey. yacni ilaahay wuxuu inoo tilmaamay ummadda dhan oo la baabi'iyey. macnaheedu waa maxay? macnuu waxa weeyaan kow, qofka mu'minka wuxuu rumaysay war adduunkan waxaan ilaahay rabayni kama dhaco, waxaan alla idmini ma dhacaan. nin xoog weeye nin xoog yaritoona ma jiro, laakiin innagaa layna itixaamaya. ilaahay waa awoodi karayaa diintiisa inuu u gargaaro biduuni ayi shay. kun fayakuun baa awoodiisaa, waida araada shay-an an yaquula lahu, hadduu wax doonaya ilahay wuxuu idhahdaa kun fayakuun uu ahaanaya. laakiin waxay culammadu yidhahdaan innagaa ku jirna mawduc alimtixaan. idan adigaa lagaa rabaa mushkilad kastoo kaa hor timaada imtixaanka ma ku guulaysanaysaa mise waad ku dhacaysaa. adaa lagaa rabaa mas'alo kasta ma sax baad uga jawaabtay mise qalad baad uga jawaabtay. adaa lagaa rabaa mashaakilka soo baxay oo dhan inaad si saxa uga jawaabtid. saa daraaddeed ayuu rabbi subxaanah wa tacaala wuxuu ina leeyahay walaa tahinuu, war ha murugoonnina, ha liidanina, oo walaa taxzanuu ha murugoonnina, waantum laclawna in kuntum mu'miniin. أفخر بأني مسلم شكرا يا رب يا خالق